marka aad ka fakarto faas waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya agab loo adeegsaday in geedaha lagu jaro ha yeeshee timajari Kenyaan oo fadhigiisu yahay ismaamulka Kiambu ee dalka Kenya ayaa la yimid farsamo dadka ka yaabisay. Julius Mwangi waa 24 jir xirfadiisu tahay timajaranimo. Shaqadan waxa uu bilaabay sanadka 2014 muddo markii uu ku jiray ayuu sheegay inuu jecelaystay leemaanshaha wax ka duwan dadka kale taasi oo noqotay inuu faas u adeegsado timajarista. Ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu soo jiito macaamiil cusub. In faas timajarid loo adeegsado adeeyay ugu cusbeed sidaas darteed waxa uu tababar ku qaatay qoyskiisa oo timaha ugu jari jiray faaska ilaa uu si fiican uga barto habka jarista faaska. Mwangi waxa uu sheegay in sababta kale ee faaska jecelaysay ay tahay in faasku aanu u baahnayn koronto oo meel kasta iyo mar kastaba timaha la jari karo. Faas timaha lagu jaro waa adag tahay waxay u baahan tahay isku dheelitir adag waxa kale oo ay u baahan tahay in dadka ogaadaan farsamada cusub. Haddaba si loo ogaado farsamadiisa cusub Mwangi ayaa saaxiibadiisa u adeegsaday inay dadweynaha gaarsiiyaan adeegga cusub ee uu bixinayo. Dadku waxay u imaan jireen si ay u daawadaan faaska timaha lagu jarayo iyo sida aan shaqada u dhameeyay iyadoo aan wax nabar ah qofka aanan gaarsiin. Mwangi ayaa xusay in marka qofka ay ku cusub tahay hab jarista uu aad u cabsanayo laakiin uu isku dayayo in niyadda uu qaboojiyo isagoo u sheegay inaysan waxba ka duwanan agab kale ee la adeegsado. Waxa uu doonayaa inuu adeegsado faas ka khafiifsan midka uu hadda adeegsado taas oo uu sheegay inay hawsha u fududeynayso. Hadda macaamiishiisu aad ayay u badan tahay oo dadka la gedisan ayaa yimid xaruntiisa. Qofkii ayuu timaha ugu jira isagoo faas adeegsanaya lacag gaaraysa 500 oo Kenyan shilling una dhigata $5 Mareykanka ah. Mwangi ayaa farsamadan cusub waday 6 bilood ee u dambeysay isagoo sheegay in qiimaha kor u kici karo marka dalabka uu sii kordho.